Vijay Deverakonda maanta waxaan ka hadlaynaa waninkii odaygahay Vijay waxaan kaga hadlaynaa barnaamijkeena xasaawihiisa qarsoon hablaha isaga kuwaalan haysashada diintiisa hantidiisa iyo hamigiisa nolosha Vijay Deverakonda wuxuu dhashay taariikhdu markay ahayd bishii May 9keedii 1989 wuxuu ku dhashay magaalada Hyderabad ninkan odayga ah waa actor sidoo kalena waliba waa producer actorkan sidoo kale producerkan filimkiisii ugu horeeyay uu la yimi wuxuu ahaa filimkii Novella filimkaas waxaa shaashada loo saaray 2011 Vijay gabigiisa aflaantiisa waxa lagu qiyaasay ilaa 20 filin hase ahaatee 20ka filin ayaa waxay u noqdeen kuwo u qarxay isagana aad iyo aad loogu amaanay sidoo kalena qalbiyo badan uu ku hantay taa waxa ku sii dheer in shirkadda Forbes ay ku darsatay liiska 100ka actor ee markaas ugu saameynta badan 2018 ilaa 19kii actorkan mushaharkiisa bil ahaan waxa loo qiimeeyay 1 karoor halka sanadkiina isku celcelis ahaan ilaa 12 karoor ay soo galaan hantidiisa uu iminka gacanta ku haystana waxa lagu sheegay ilaa 7 milyan actorkan dhalinta yar isla markaasna waliba ku jira shirkadaha ama Bollywoodka ama Tollywoodka baha ahaatee muddo aad u gaaban wuxuu qani ka yahay abaalmarinada kuwada ugu qaalisan sida abaalmarinta loogu yeero Sima takale loogu yeero Nandi iyo tan kale ee shirkadda Bollywoodka ay bixisay Filmfare Awardka Vijay mar la weydiiyay actorada uu ku daydo ama uu jeclaan lahaa inuu heerka ay gaareen uu gaadho wuxuu sheegay labada actor uu waliba ku xusay inay yihiin laba actor oo markaas aan cid qaraabo iyo qansax toona aan ku lahayn shirkadaha Bollywoodka ama Tollywoodka isla markaasna heer caalamiga isgaarsiiyay actoradaasna waxa way horta actorkii weynaa ee Koonfur Hindiya Chiranjeevi ninkan odayga ah ee khatarta ah ee waliba metelay ilaa iyo 150 iyo wax ka badan oo filin oo xagga Teluguga iyo xaggan kale oo waliba filmada aanu ka maqnayn sidoo kalena khatar ku ahaa dansiga iyo waliba action kaba sidoo kalena aabaha Ram Jaran ayuu yiri aad iyo aad baan uga dambeeyay waana jeclahay heerka uu gaaray inaan gaadho sidoo kale wuxuu sheegay oo number 2 uu ka dhigtay Shahrukh Khan oo uu sheegay inaanu hooyo aabi adeer iyo naabti hawradaag iyo qaraabo iyo qansax midna aanu ku lahayn shirkadda Bollywoodka maanta uu kamid yahay actorada adduunka caalamka kuwada ugu sareeya Vijay Hindi oo dhan waxa isku raacday inuu yahay actorada da'da yar kuwada ugu khatarsan hase ahaatee kuwan iyo Bollywood waxay yiraahdaan iyagu oo si khaas ah ninkan ay ugu imaamadaan oo siiyaan inuu yahay superstarka Koonfur Hindiya macna intii ay nin arkeen xagga iyo koonfurta ka soo jeeda waa kii ugu khatarsanaa waana kii ugu saameynta badnaa waana kii ugu taageerada badnaa ayay ku leeyihiin asxaabta qaar oo waliba xagga ka soo jeeday caalamka intiisa kaleba ayaa hadalka ka biyadiiday oo tiri Vijay hadda tiraahdaan maanta Koonfurta Hindiya ayuu ugu khatarsan yahay waa actorkii ugu khatarsanaa Koonfur Hindiya ka soo jeeda been bad Ilaahay u sheegteen waa inagoo niraana Vicky Kaushal ayaa shirkadda Bollywoodka ugu khatarsan oo aynu ilowna Salman Khan iyo Shahrukh Khan iyo Amir Khan iyo markaas ah oranaba yiraahdaan anagu ma diidanin inuu yahay Vijay Deverakonda actor aan caadi ahayn laakiin ha oranna ay yiraahdaan dadkaas markaa isaga u diidan inuu qaato magaca inuu yahay superstarka Koonfur Hindiya waxay yiraahdaan ha oranna inuu ka sareeyo dadkii hore khatarta ahaa iyo dadkan dambeeba dad badan baa jira oo ka khatarsan ama ha horeeyeen ama haba dambeeyeen laakiin waa actor aan caadi ahayn laakiin Bollywood wali halkoodii ayay taagan yihiin oo waxay leeyihiin maya ninkan nin aan u dhigi karno waliba taa waxa kaaga daran hablaha waa sababta aan leeyahay hablaha kuwaashay inankan da'yarta waliba ugu cadcad shirkadda Bollywoodka ayaa waxay ku yihiin bash inankan waxay ku yihiin bash hablahaas waxaan kaaga soo qaadi karaa Janvi Kapoor iyo Sara Ali Khan waliba Janvi Kapoor iyo Sara Ali Khan waba mar la weydiyo la yirmiyeedan isku dilayn macnaa oo ay isku xanaaqin waayo dumarku nin ma wada yeelan karaane oo nin amooda taageeri kartaan amooda jeclaan karaane mayba yiraahnaga saaxiibtinimadayada ayaa ka weyno waana ku wada soconnaa anagu marka ninkan waxaan ku yiri meel kasta public meel interview meel kasta hablaha shirkadda Bollywoodka
aad ayay ugu waalan yihiin si waaliya oo zaa'idana mar walba u ammaanano afka ayay ku hayaan. Anania Pandey iyada iska daa oo waxay ka mid tahay dadka looga shakiyay inuu xiriir rasmi ah la wadaagay. Haddaba imika waxay noo soo qaadayaa bal aflaanta ugu khatarsan ee markaas uu qulubta dadkaas waliba dhalinyarta da'yarta hablaha waliba ku sii kasbaday. Filimada waxaa ka mid ah filimka la yiraahdo Arjun Reddy, Geeta Govinda, Mantaram Fezava, Ligar. Inkastoo filimkan Ligar uu noqday filim ka guul daraystay, hase ahaatee wuxuu ku sii kasbaday maadaama uu dadaalay, jirkiisa dhisay, qaab aan caadi ahayn u samaystay, Derma Production ay markaas filimka ay soo saaraysay magac, maamuus, qiimo, يعني نولال تاجريال بدن واحد بدن أيو فيلم كقوله يسقى بأفكيس كشكل في الفيلم كمادامه إنك استوفي يري فيلم كإيجا ماضي أو قرشان وجول درسته وحتى دباتوين فربدن وكلا كل ماي دباتوين كسي كم بضحايا مركي أي تشوجين حاجة إلى لاتين أمريكا أي دفيلم كماك تايسون يقول سمير يفرفرد كا ayaa lacagayo fara badan si macna dawladda iyagoo ka dhacaya kooxdan produceradu ay lacag dirdireen adu dawladda markii dambe adu dambiye ku soo ogtay hase ahaatee isagu wuxuu yiraahdaa filimkii wuu burburay waxyaabo badan bay geeyay laakiin filimka filim u dhigo ma jirto waayo caalam baan tagay nolol baan arkay meelaha adduunka ugu qaalisan ayaan arkay meelaha adduunka ugu quruxda badan ayaan soo seexday wax ka soo cunay marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana runo taageero aan caadi ahayn oo caalamiga ayuu filimka ku kasbaday waa hagaag iminkana waxaan u gudagalaynaa hablaha oo xiriirka la sameeyay sida rasmiga ilaa iminka lagu sheego hablaha waxa kamid ah horta saaxiibadiisa qaaliga ee la yiraahdo Virginia Payne gabadhan waa gabadh reer Belgium ah oo ay saaxiib yihiin laakiin in badan waa la isku xantay khaasatan sawiradan iyo fiidiyoyo iyo wax noocaas ayaa lagu qiimeeyo leeyiri waxba ka dhaxeeya hase ahaatee isagu mar dambe wuxuu yiri wax alla wax naga dhaxeeya ma jirto number 2 waxa weeye gabadha la Samantha Barabu Samantana waxa la sheegay inay xiriir rasmi ay ninkan lahaayeen laakiin in badan uu isagu qarinayay ku dadaalay inuu qariyo xiriirkaas waliba khaasatan waxa la arkay oo dadkan u sii cadeeyay in xiriir khaas oo saaxiibtinimada ka sii fog ay leeyihiin markii la arkay sawir xilli ayadu ay lahayd dhalasho sawir uu la galay ayaa sawirkaas wuxuu ka dhignaa laba qof oo isjecel sidoodii inay sawirka ay u wada galeen marka xiriirku uu ka fog yahay saaxiibtinimo kaliya hase ahaatee isagu wuxuu yiri no wax ka jira haba yaraatee ma jirto number 3 waa Anania Pandey inantan iyada filimka Ligar waa ku wada jira khaasatan wuxuu yiri meelo badan bay ka caawisay soo dadaawisiisay saaxiib qaali ugu noqotay yani magaalada Bombay oo kale si fiican ma kala gargaranayn amaan iyo wanaag iyo qarrac buu ma garanaysaa oo ciid isugu qariyay laakiin wuxuu sheegay wax xiriira oo saaxiibtinimada iyo walaaltinimada ka baxsan inaanu inantan la lahayn hase ahaatee dad waxay yiraahdeen oo ay sheegeen oo waliba dadkii markaa meesha iyo filimka ka hawlgalayay in isla filimkaas markay imataleen bil kadib ay xiriir bilaabeen kulamo khaasna ay yeesheen hase ahaatee isagu beeniyay taasna number 4 waa inanta la yiraahdo Rashmika Mandana waa inantaba mowduuciinan aan maanta sababta waa inaan soo qaadano inantan hadaba afarta hablood aan soo sheegnay waa inanta ugu dhow in ay jacayl rasmiya ay wadaageen khasabna way wadaageen anaaba kule wax baa ka dhaxeeyay waxaan caadi ahayn baa ka dhaxeeyay inankaas waa hubaal inay sonkorta iyo sayuuta ay isku ahaayeen ama iminkaasi wada joogeen ama ha kala tagan laakiin waqti inay nolol ay iyo jacayl ay soo wada qaateen taasna waxa ku cadeynaya si khaas ah oo dadka kale ka duwan ay labadan isku yihiin oo xiriirkooda baan afka ka sheegin mooyaan dad badan baa jira sida Disha Batani Tiger dad badan baa jira oo xiriirkooda aan shaacin dad badan baa jira oo xiriirkooda aan shaacin isaguna dabcan ragaas aan xiriiradooda jecleen in la public la keeno ayuu kamid yahay inantan markaa waxa cadeyn dadkii ugu filnaatay 2022 bishii October ayaa barteeda Instagram waxay soo dhigtay sawirkan waxay joogtaa jasiiradda Maldives jasiiradaas ay sawirka ku gashay dabadeedna isaguna sanadkii cusbaa ee 2023 sanadkan in ku jirno ayuu haduu ilaahay ka dilay sawirka isna soo dhigay isagoo leeyahay happy new year marka waxaan tuugxadi karin in ay labadan si gaar ah ay dalxiis ugu baxeen
سيجار يعني ما يراعين فيلم ما يلهين هول اسمه يراعي لكن سي خاص أيه ولبدود ayay isku raaceen oo ay u tageen jasiiradaas isla meeshaas ay markaa ku jireen halka ay joogaan isla goobtaasna waa kuwa sawirada ku soo wada galay marka dadkii maxaa u cadaatay wixiiba inay iska tahay daahiriya shams laakiin iyagu aanay jeclaysaneen markaas inay afkooda ka sheegaan hasi ahaatee isagu mar walba wuxuu ku celceliyaa afkiisa intaasoo hablood aan ka soo sheekay inay yihiin asxaabtiisa khaaska uu jecel yahay mid walba si gooniya ayuu amaanay yiraahdaa tan waa khatar tan game baan wada ciyaarnaa tan loo faas ku nahay tan kaftakeeda jecel tan waa ixtiraana iyo wax la mid ah halkaas ay asxaabteeda inoogu soo koobiya dawan la socdaa insha Allah taala ila socda aad iyo aad baad u mahadsantihiin kaliya